رمضان markuu dhamaado ama gunaaniga gabagaba u soo dhawaado sida hadda oo kale waxa laga doonayaa dadku inay u diyaar garoobaan waajibka saaran ee la xiga ramadaanka oo zakatul fitriga ama sadaqatul fitriga in la bixiyo zakatul fitriga waa waajib sunnada nabiga sheegtay sallallahu alayhi wa sallam ummaduna gudataa laga doonayaa marka xukunkeedu waa waajib dadka masaakiinta ee baahanna cunno iyo quud bay u noqonaysaa lagu kabayo oo lagu taakulaynayo maalinka ciidda si iyagoo wax gacanta ku haya waxna gaaray dadka muslimiinta farxad iyo ciid ay ula qaybsadaan وكسابسن أحكامته زكاة الفطرية رمضان markuu dhamaado ama gunaaniga gabagaba u soo dhawaado sida hadda oo kale waxa laga doonayaa dadku inay u diyaar garoobaan waajibka saaran ee la xiga ramadaanka oo zakatul fitriga ama sadaqatul fitriga in la bixiyo san hore buu soo sheegi jirnay ahkaamta zakatul fitriga uma cusba oo intee hore laakiin inta ugu muhiimsan aan xalqadeena isku xasuusinayna zakatul fitriga waa waajib sunnada nabiga sheegtay sallallahu alayhi wa sallam oo farada rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ibn umar ibn abbas labaduba nabiga waajibiyay ayay yiraahdeen maradii nabigu waajibiyay sallallahu alayhi wa sallam ummaduna gudataa laga doonayaa marka xukunkeedu waa waajib xikmadda iyo faa'iidada ku jirtana waa labo mar waxay tahay tuhratan lis-saa'imi min al-laghwi wal-rafath wixii maala yacniga ahaa iyo wixii qaladaad iyo dambiyada yaryar ahaa iyo qofka saa'imka looga dhaafaya ee soo galay soomkiisii waxooga yar dhex galay waa tucmatan lilmasaakiin dadka masaakiinta ee baahanna cunno iyo quud bay u noqonaysaa lagu kabayo oo lagu taakulaynayo maalinka ciidda si iyagoo wax gacanta ku haya waxna gaaray dadka muslimiinta farxad iyo ciid ay ula qaybsadaan yay ku waajibtaa waxay ku waajibaysaa inuu bixiyo ama laga bixiyo qof kasta oo muslim ah oo laba tilmaamood isugu yimaadeen qof kasta oo muslima markaynu niraahno ciddii aan muslim ahayn baa meesha ka baxaysa way dhici kartaa qofku inay la xiriiraan dad aan muslim ahayn oo xigtiya qaraabo ah ama xid iyo reera way dhici kartaa qof kasta oo muslim ah bay ku dul waajibtaa ama isagu ha bixiyo ama cid kale waajib ha noqoto inay ka bixiyaan laakiin qofka muslimka isaa noqonaysa waa markii laba isugu yimaadaan marka koowaad inuu soonka bisha ramadaan qayb ka soo gaaro nololna ku soo gaaro midda labaadna waa inuu bisha shawaal iyo ciida qadarka iyo intay dooniba ha noqotee nolol ku gaaro macnaheedu waxaa weeye waa qof saacadihii u dambeeyey ee soonka intii maalinimada ahayd iyo saacadihii u horreeyey ee xilligay bishu bilatay ee habeenka ciidda ahaa ugu yaraan labada qayb ka mida nolol ku soo gaaray qofkii soo noolaa laakiin ciidda aan gaadhin nolol oo walow intay dooniba hala ekaatee ka hor geeriyoodee laguma laha qofkii dunida kusoo biiray markii bishii la arkay intii la dooniba ha ka soo wareegtay ee qoraxdu dhacday kadibna ay habeenkiina ciid noqotayna isna soon laguma laha laakiin ilmaha dhasha qoraxdu intaanay dhicin qoraxduna ay u dhacday isagoo nool zakatul fitri baa ka waajibaysa oo in la bixiyo ay noqonaysaa haddii la yidhahda goormaa la bixinayaa zakatul fitrigu inta aan garanaya ma jiro
nas cad oo odhanaya bixintu xilligaasay ka bilaabataa. waxaa ugu dhow nabigu inuu faray weeye sala allahu alayh wasalam in la guto la bixiyo qabla asalaa, salaada ka hor. salaada ka hor waa waqti waasica oo la bixin karo. qofkii xilligaa bixiyaay wuu ka ajir badan yahay qofkii xilligaa kadib bixiya. laakiin mar waliba haddii aadan bixin oo salaada ciidda la tukado xataa waqti kasta oo kasoo wareega waa dayn ku saaran oo xaq masaakiina inaad bixisaa lagaa doonayo. saas darteed ma habboona salaada ciidda in laga dibdhiga ma habboona, waayo mar walba hadaad bixinayso oo salaadii baa dhaaftay ayna kaaga dhacaynin inaad waqtigeeda wanaagsan ku bixisaa habboon. ama nidhaana sunna mu-akada weeye sida fuqahadu u badan yihiin, ama nidhaana waajib weeyo nabigu hadduu amray calayhi salaatu wasalaam amarku asal waajibnimu faa'iideeya. mar waliba waxaa la doonayaa qofku inuu salaada ka hor bixiyo. haddii uu bixin waayana kadib waman addaahaa bacda asalaati fahiya sadaqatu min asadaqaat. qofkii bixiya salaada kadib bixinteedu waa lama huraan, ajirkeedunba waxa iska dhimayaa. laakiin addaa iyo qadaa miyay kala noqon? way leedahay addaa iyo qadaa. addaheedu waa salaada waxaa ka horeeya, qadaheeduna waa maalinka ciidda wixii ka dambeeya. inta salaada ka dambaysa ee maalintaa ciidda ahna waa masale culimmadu isku hayaan. waxaase loo badan yahay, culimmadu u badan yihiin inay addaha ka mid tahay oo aanay qado ahayn, haba laga ajir badnaade. goormay soo bilaabataa? sakaatulfitrigu marka ila dadka la siinaya saynu tilmaami doono iyo axkaamteeda qayb badan oo kamida waxay la wadaagtaa zakaatulmaalka. labaduba waa cibaado maal ah oo qadar go-an la bixinayo. labadubana laba sababood bay leeyihiin. tan waan soo sheegnoo soon iyo ciid labadaba inuu soo gaaro wey. ta kalena inuu maal gaarayana hayo muddadii sanadka ahana dhammaada wey. haddaynu raacino qiyaaska saxda sida uu keenayo, zakaatulmaalka waxaa la bixin karaa, waa la hormarin karaa mar hadduu qofku maal zaka gaaray hayo. intaanu sanadka gaadhin waa hormarin karaa. xilliga nabigeena alayhi salatu wasalaam nabigaa hormarsaday oo adeerkii cabbaas zaka ka hormarsaday. taasina waxay tilmaamaysaa mar hadduu sababkii koobaad guntamo ka labaad intaanu dhammaystirmin waa la hormarin karaa. taas waxay ka dhigan tahay sida fuqahadeena shaaficiya madhabkeenu yahay, fuqahada shaaficiya raxmatullaahi calayhim ay yidhaahdeen baa sax ah. sababkii haddii la helo koobaad oo soonka inuu soo galay ah, sababka labaad intuusan dhammaystirmin waajib ma noqonin waqtiga bixintu, laakiin waa la hormarin karaa. saas darteed maalmaha ramadaan ka dhiman waad bixin kartaan. u diyaargarowgiyo dad xilligay bixiya usii dhiibitaan maaha waxaan ka hadlayno, taasi mar kastaad usii dhiibi kartaa. haddii la yidhahdo muxuu yahay qadarka la bixinayo? qadarka la bixinayo waa suus ama saac carabiga waxa loo yaqaano. saac iyo suuska lagu bixinayaay cunooyinka la bixiya marka la eego u kala duwan yihiin. cunooyinka nabiga ka sal ly slam xilligiisi la bixin jiray ama cunooyinka kale ee booskoodii geli karaya quutulghaalibka noqda waxay ku kala duwan yihiin. marna waana kala culus yihiin, waana kala qolof iyo dhumuc weyn yihiin. cunooyin waxaa jira dhumuc yar laakiin culus sida qamandida oo kale. suuska waxaa buuxiyaayey haddii miisaan laga dhigaayo aada buu u badanayaa. cunooyinka qaar waxaa jira iyagana dhumuc weyn laakiin khafiif oo fudud. waxaa suuska buuxiyaayey haddii miisaan la saaro khafiif buu noqonayaa. timirtu waa wax culus, waxay yidhaahdaan shaciirtii iyo wax lamidana waa fudud yihiin. haddaba waxay u baahatay markii la yidhahda miisaan ha loo bedelo, miisaanku waa wax go-an. cunooyinkiina weelka wada buuxinaya isku miisaan iyo culays maaha. waxay noqotay markii la xisaabo cunooyinkii kala duwanaa xilliga nabiga alayh isalaatu wasalaam inay kiilooyin kala duwan soo baxaan. kiilooyinka kala duwanaana meel dhaxa in la isugu keeno maahane kiilo go-an lama sheegi karo. wixii wax lagu kala gadanaya wax lagu qiyaasaya cabirayeen wixii la miisaya waa iska yaraaday. wax la miisaamayo u bato kiilooyin iyo ha lagu ogaaday noqotay.
2 kiilo qaar baa noqday culays ahaan 3 ku dhowaadna qaar baa noqday intaan culimada aqriyay isku celcelis hadii la yiraahdo wixii meel dhaxaa la isugu keeno waxaa u macquulsanaa 2 kiilo iyo bar in la bixiyo qofkii laga bixiyo qofkii 2 kiilo iyo bar inay ku waajibto oo miisaanka dhexdhexaadka 2 kiilo iyo 3 kiilo wixii u dhaxeeyay qofkii ka badiyana de qadarku ka badiyay ama ku shaki bax ama sadaqa dheeraad u noqonaysa intaasi waa qadarka la bixinayo waxa laga bixinayo waa cunada qaalibka ee dadweynuhu inta badan ay cunaan waxaan waa sadaqa la bixinayo masaakiintaana mudan mujtamacuna caadihan inta badan dadkan waxaysane wax isku mid ah cunay u badan yihiin meesha la joogo hadaba cunto gaar ah ama meesha baan laga cunin ama ka qaalisan ama ka jaban laga yeeri maayo qofku waa inuu bixiya cunada qaalibka ah ee dadka intiisa badan cunaan isaga taqaalibka waa maaha waa isagu xanuunsanaan karaa qaar baa xanuunsan oo cunooyin gaar ah cuna dadka la siinayo waxa qaalibka u away waxa la bixinayo cunooyinka asaaska la cuno waxa qaalibka u ah baa la bixinaya yaa la siinayaa waxaa la siinayaa dadka masaakiinta ah kow mudan iyo faqiirka laakiin waxay ku baxdaa intii ay zakaatul maalka ku baxaysay hadaba 2 cibaado maal ay yihiin labadaba dadka laga doonayo niyadiina looga baahan yahay mid weyn laakiin farabadani ay zakaatul maalka tahay iyada intay ku baxaysay way ku baxaysaa laakiin waxay si kala mudan yihiin miskiinka iyo faqiirka si mudan hadaba si gaar ah nabi u timaayo sallallahu tu'matan lil masaakiin wax yaroon aad u qaybsamaynin oo wax badan sida zakaatul maalka aan ahayn ay tahay sakinta waa si mudan yihiin iyo fuqarada laakiin intay zakada la siin jiray oo kale dhan ayay ku baxaysaa oo la siin karaya haddii su'aashii ugu dambaysa ama qadiyada u dambaysa aan rabo inaan tilmaamo ama labada qadiyada u dambaysa yaa bixinaya marka la yiraahdo qofku naftiisu ka bixinaya iyo intii nafaqada iyo biilkooda waajibka ku yahay adigu haddii zakaatul fitri naftaada mas'uul ka tahay adaa iska bixinaya sharci ahaan man ka hadlaynaa haddii naftaada cid kale nafaqadeedu waajib ku taho mas'uul ka tahayna cidda nafaqadaadu ay saarnayd bay zakaatul fitrigaaguna saaraya halka waxaad ka garatay zakaatul fitriga wuxuu farac ka yahay naftan laga rabo zakaatul fitriga nafaqadeeda yaa lagu leeyahay hadday tahay naf iyada mas'uul iska ah iyada iska bixinaysa haddii aynan ahayn oo mas'uul laga yahay nafaqadeeda waajibka sharciga ah ciddii mas'uulka ka ahayd baa nafaqadeedii say mas'uulka uga ahayd zakaatul fitrigeedana waajib u noqonaysa saa darteed baa qofka wuxuu ka bixinayaa naftiisa iyo inta ay nafaqadooda waajib ku tahay ciddaan ay nafaqadooda waajib ku ahayn ahli iyo qaraabo la nool haddii ay dad yaryar yihiin ka bixintoodu dhib ma laha laakiin waajib kuma hadday dad waaweyn yihiinna idan sariix oo cad ama curfi inuu ka haysto ayuu u baahan yahay ee wakiilnimo ku bixinaya haddaynan wakaalanina isagoo niyaabatan ama iyaga matalay ma tasarrufi kara wax bixin karayo su'aasha ugu dambaysa ama masalada ugu dambaysa mar walba soo noqnoqotay zakaatul fitriga lacag ma lagu bixin karaa way su'aasha jawaabteeda waxaan leenahay zakaatul fitrigu waxay u waajibtay xikmadda kamid ah saynu soo sheegnay dadka baahan ee masaakiinta ee muslimka in maalinka la qoodiyo lagu taakuleeyo si ay muslimiinta ayna ugu dhex gaajoonin farxadda iyo ciidana uga qayb qaataan hadaba waxay ku xiran tahay dadkii maxay dan dheeraada ugu jirtaan maxaa u roon haddii dadka uu siinayaay ay u nacfi badan tahay ama ay u dhaqaalo badan u roon tahay in lacag la siiyo ama raashinkuusan waxba u qabanayn u taraynin wajiyo badanna way yeelan kartaa iyo suwar badan iyo tusaalayo badan lacagta waa lagu bixin karaa waxaa dhici karta iska abulo meel degan oo digsina u gadnayn dabna aan shidanin marka ciidda ka soo dareeraan raashin cayrin oo la siiyey meel ay geeyaan garan maayaan laakiin lacagtiisii haddii la siiyo makhaayadda u horeyso wax kaga cunaya qofka raashin buu cunay laakiin lacag buu ku iibsan karaa uu ku cunay mid bisile
mid cayrina meel ku karsada ma bahayo ama qoys masaakin oo ilmiya caruura leh oo raashin badan loo keenay waxa la leeyahay laakiin raashinka waxay ku karsan lahaayeen ay ku darsan lahaayeen aan haysanin raashinkaad keentay suuqa geeyaan ay gadaan qiimihii mid ka yar ku gadaan bay qasbaysaa inay ku soo gataan marka qiimo ka yar intay ku sii gadi lahaayeen wixii ka fiicnaa inaad siisaa dan ugu jirta dadka qaar baa safar noqon kara oo meel jida socon karo raashin cayrina hadii la siiyo oo qan qaadi karin oo xamaali karin maqsuudkii iyo xikmadii cilladii haddaynu ku sareyno qiyaaska saxda wuxuu keenayaa wa tacliil bil xikma la yiraahdaay in la bixin karo hadday dadka masaakiinta u nacfi iyo waxtar badan tahay haddii la yiraahdo waxan waa cibaado cibaadana qiyaaska waa laga ilaaliyaa cunooyin buuna nabigu ka tagay sallallahu alayhi wasallam cunaha la bixiyaay waxaan uga jawaabi karnaa cibaadada qiyaaska laga ilaaliyaa qowl daciif waay cibaada asala qiyaasku ma sugo laakiin masaa'ilka juz'iga tan oo kaleete furuucda cibaadaadkii in badan oo kamid ah qiyaas bay ku salaysan tahay marka labaad waxaan leenahay cunto qaaliba hal la bixiyo markii la leeyahay lafteedu qiyaas way cunooyin go'aan buu nabigu bixin jiray sallallahu alayhi wasallam waxaa laga istinbaato lagala soo baxay illa quutul ghalib la yiraahdo inay ahaayeen kadib waxaa looga qiyaastay cunno kastoo quutul ghalib noqoto marka qofka i'tiraafka keenaya hadduu daahiriye yahay intii un baa la bixin yiraahda iyagu cibaadaad kaliya kuma ekee qiyaaska oo dhan bay diidanayeen hadduu qofka i'tiraafka ama bushiga keenay uu yahay qof quutul ghalib hal la bixiyo lehna waxaa muhiim inuu ku baraarugo isaga laftiisu qiyaas buu ku saleeyay isna qiyaaskiisu qiyaaskii cilladii laf wasfiga ahayd buu raacay qofka markay nacfi badan tahay baneeyay lacagtana qiyaaskii tacliilkii xikmad iyo gaayada ahaa buu raacay labadana laba tacliilo oo ususha qiyaaska la raacay saxiixa weeye oo cibaadadkana ku jira intaas baan kusoo gabagabaynaynaa zakaatul fitriga hal la bixiyo yaan lala daahino waqtigeedana hal la ilaaliyo ilaahi subxaana wataala allah inaga aqbalo axkaamteeda inaan baranana kuwii ugu diyaar garoobay ka hormariya allah inaga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu